dhalinyaro kusoo dhawaada koorskeennii Introduction to Cybersecurity waa casharkii afraad waxaynu ku qaadan doonaa malwareska waxay yihiin noocyadooda waxay kala duwan yihiin sida u dhacaan iyo siyaabaha uga taxadiri karto soo dhawaada ereyga malware waxa laga soo gaabiyay malicious software waana software kasta oo lagu talagalay loona qaabeeyay in lagu waxyeeleeyo computer si kooban malware waa software ay sameeyaan dambiilayaasha cyberka ah si ay u fuliyaan danahooda xun inta masla fahanay malware waa software hadduu computerkaaga soo galo ka kharibi kara kana baabiin kara haddaba maxay yihiin noocyada kala duwan ee malwareska noocyada malwareska waxa ugu caansan kuwa soo socda virus kan waxaan filayaa inuusan jirin mid ka caansan intana badanna waynu naqaanaa balse aynu maanta isla fahanno waxa uu yahay virus waa program istarminaya kaasoo lagu soo dejiyo program caadi ah haddaba marka computerkaaga ku shubto programka caadiga ee uu ku dhegsan yahay virusku waxa dhacaysa in viruskaas uu ku faafo programada kale oo isku tarmiyo si fudud aan kugu sheego viruska haddii aad fahmi weydiintaa virusku waa program aan keligii meel istaagi karayn si uu u shaqeeyo waxa u baahan yahay in la xambaaro oo la qaado si uu u galo computerka haddaba shaqada waxa lagu fulinayaa program sax ah oo la garanayo tusaalahaan Photoshop oo kale oo Photoshop uu ku dhegsan yahay virus ayaa laga yaabaa inaad dejisato kadibna viruskii uu computerka gudihiisa ku soo galo halkaas dhowr ka qabsado shaqadiisii haddaba waxyaabaha uu sababi karo virusku waxaa ka mid ah inuu delete gareeyo ama xumeeyo faylasha computerkaaga oo corrupted ka dhigo sidoo kale waxa uu xadi karaa passwordada jira computerkaaga sida gmailada ama haddii cards aad isticmaasho wuxuuna xumeyn karaa ama fadhiisin karaa operating systemka ugu shaqeynaya computerku sida Windowska mararka qaarna waxa uu samayn karaa inuu soo dejiyo malwares kale oo saaxiibadii ah oo ka khatar badan ka labaad waxa lagu magacaabaa wormsna waa nooc ka mid ah malwareska waxuuna la mid yahay viruska balse wuxuu kaga duwan yahay inuusan u baahnayn program sii qaada oo gaarsiiya computerka wormku hadduu chance kugu helo iskii ayuu soo geli karaa computerka oo ma baahna inaad soo xambaarta oo soo gelisa computerka waxyeelahaana wuxuu la mid yahay viruska ka saddexaad waa mid aad u xiiso badan waxaa lagu magacaabaa Trojan horse haddaba muxuu yahay Trojan horse waa malware loo ekeysiinayo software sax ah sida game ama application kadibna aad u malaynayso inuu yahay program caadi ah kadibna waxa dhacaysa inaad dejisato application ka khariban halkaas ayna ka bilaabaysaa shaqada Trojanku waxuuna samayn karaa waxyaabo badan oo virus iyo worm ka awood badan sida in computerka ka dhex samaysto backdoorku waa albaab laga soo geli karo computerkaaga balse aadan ogeyn Trojanku wuxuu sameynayaa albaab aadan ogeyn kadibna halkaas ayuu saaxiibadiisa kale ka soo gelinayaa sidoo kale wuxuu samayn karaa in delete gareeyo gebi ahaanba faylasha iyo waxa kugu jira computerkaaga oo dhan fadhiisiyana operating systemka waxaa jira nooc ka mid ah Trojanka kaasoo ah mid si khaas ah loo design gareeyo waxaana lagu magacaabaa RAT ama Remote Access Trojan waxaanu kaga duwan yahay Trojanka caadiga inuusan mid badan lagu baraarugo oo si quyar ah ayuu backgroundka uga shaqeeyaa almuhim waxaad u fahantaa RAT inuu yahay nooc ka mid ah Trojanka oo ka khatar badan noocyada kale waxaana rajaynaynaa mar si khaas ah cashar gaar ah inoo noqdo waayo aad ay uga ballaaran yahay qaybaha kale oo dhan nooca afraad waxa lagu magacaabaa ransomware sida ka muuqata magaciisa ereyga ransom waa madax furasho malwarekan wuxuu sameynayaa inuu encrypt gareeyo oo ka dhigo faylasha sawirada muuqaalada iyo wax kasta oo ku jira computerkaaga kuwa aadan isticmaali karayn si fudud haddii computerkaaga uu soo galo ransom waxa uu password oo kale ku xidhayaa waxa ku jira computerkaaga oo dhan kadibna waxa lagu xujeynayaa inaad bixiso madax furasho si lagu siiyo passwordka aad ku furan karto faylashaada ma xasuusataa dhacdadii WannaCry ee aynu kaga warramnay malware khatar badnaa oo adduunka saameeyay 2017 malwarekaas waxa uu ahaa ransomware qof kasta oo computerkiisa galayna waxa lagu xujeynayaa lacag gaaraysa ilaa $300 hadduu muddadii loo qabtay uu ku bixi waayana waa lagu dalaacayay oo lacagtu way ka badanaysay intii hore kan shanaad waxa lagu magacaabaa spyware waxaana sida magaciisa ka muuqata waxa lagu talagalay in wax lagu basaaso oo wuxuu soo ururinayaa macluumaadka iyo shaqooyinka ka dhex qabanayso computerkaaga si kooban wax kasta oo samayso wuu kula soconayaa kan inta badan xitaa kamarada computerka ay furtaan oo ay ka daawanayaan kan lixaad waxaa la dhahaa hardware wuxuuna sameynayaa inuu computerkaaga ku soo fatiyo xaysiisyo aad u tiro badan oo ka cawslaynaya computerka wuxuuna xadayaa xogaha iyo waxyaabaha online ka qabato isagoo ka iibinaya shirkadaha xaysiisyada waxaana laga yaabaa inuu ugu soo dejiyo malwares kale haddaynu si kooban u sharaxno malwareska iyo waxay kala duwan yihiin waxaad tusaale ahaan ka soo qaadaa koox tuug ah kooxda tuugta ah virus waxa ku jira shaqada jeebsiibka Trojankuna waxa uu jabsaday guryaha spyware-kuna dadka ayuu daba galaa
oo xogtooda soo ururiya kadibna waxa uu ugu yeedhaa trojanka ama ciddii shaqada ka qaban lahayd. saasoo kale ayay u shaqaynayaan. inta haddaynu kaga nimaadno noocyada malwares aan ku sharaxo sida u dhacayaan khatarahani. iminka markaad keligaa isticmaalayso computer waxaa laga yaabaa inaysan khatar weyn kula ahayn malwareska, laakiin kuwa la targetgaraynayaa waa shirkadaha. waxaa la rabaa in haddii hal computer lagu guulaysto in lasoo geliyo virus ama malware inuu ku faafo computerada kale ee networka ku jira. si fudud tuugu keebuu targetgaraynaya guri hal qof degan yahay iyo guri laga buuxo oo wax kasta uu xadi karaa yaalaan. waxa uu focuskiisa iyo arrintiisa isku geynaya siduu gurigaa weyn wax uga xadi lahaa. saasoo kale hackerska xuni waxay markasta targetgaraynayaan shirkad weyn oo mar haddii ay galaan ay wax ka dhufan karaan, waxyeelana gaadhsiin karaan. haddaba sidee ayaad u ilaalin kartaa badqabka computerkaaga? ugu horeyn, marka ugu horeysa ku dadaal inaad samayso update oo aad softwarada iyo guud ahaan computerkaaga update ku samayso. updateku waxa uu xalinayaa gudaleelo laga helay versionkii hore, kuwaasoo ah cyber threat oo aynu hore uga soo sharaxnay waxay yihiin. waxaanu sii xoojinayaa ammaanka guud ee applicationka. markaa ku dadaal updateka. qodobka labaad, waxaad samaynaysaa inaad isticmaasho antivirus la hubo oo tayo leh. qodobka saddexaad oo aan odhan karo waa ka ugu muhiimsan waa inaadan gelin websites khariban. yaree dhaqdhaqaaqaaga internetka ee booqashada websaydyada. haddii aanad hubin websiteku waxau yahay mid sax ah baa mise mid khariban, waxaad isticmaali kartaa online toolska lagu dhitadgareeyo fayrasyada sida virus total. oo waxaa jira websites badan oo loo sameeyo CEO poisoning waxa la yidhaahdo, kaasoo ah website loo ekeysiyey inuu yahay mid sax ah ayna ku jirto malwares lagu soo dejin kara computerkaaga. markastana ha ku dhufan linka kasta oo aad aragto, iska hubi linkyadaad ku dhufanayso. waxaad sidoo kale isticmaashaa baaswordho aad u adag meelna ku qoro si aadan u ilaawin, sida buug oo kale. waxaan rajaynaya inuu isla fahanay waxyaabaha aynu ka soo hadalnay ee malwareska. muuqaalkeen intaas ayuu ku eegyahay. wassalaamu calaykum.